بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داودياشيدا qiimaha qaayaha qadarinta mudane hawada nagala socotay daawadayaal waxa la soo gaaray intii aan idin soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa aan idin ka haynay warkan caawa wixii idin ka imanaya telefishinka madaxa bannaan ee Xuriya 24 TV xaruntiisa guud ee aan ku leenahay magaalada Hargeysa warkan caawa waxa si toos ah inii la socodsiin doonta anigoo ah Umul Khayr Cabdi ku soo dhawaada qodobada iyada ugu doorka roole warkayaga caawa dagaal beeleedii ayaa saaka mar kale ka qarxay deegaano hoos yimaada gobolka Sool ururka ONLF iyo dawladda Itoobiya oo heshiis ku kala saxeexday magaalada Asmar ee dalka Eritrea madaxweynaha dalka Turkiga oo sheegay in maalinka Salaasada ay soo bandhigayaan cadeymihii dilka wariye Jamal Khashoggi hal sugaha Sacuudiga oo khadka telefoonka kula hadlay qoyskiisa xufiga Jamal Khashoggi daawadayaal intaas waxay hayeen qodobadii warka imikii haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan dagaal beeleedii ayaa saaka mar kale ka qarxay deegaano hoos yimaada gobolka Sool daawadayaal warkaasi waxa inoo hayay Sakariye Maxamed Xasan dagaal beeled ayaa waxa uu saaka dib uga bilaabmay deegaanka Dhuume ee gobolka Sool ma jiraan wali cid rasmi ah oo xaqiijistay khasaaraha ka dhashay dagaalkan balse warar hoose aanu helnay ayaa sheegaya inay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh beelahan ayaa maalmihii la soo dhaafay heshiis lagu dhex dhigay magaalada Laascaanood si loo soo afjaro colaadda nafa badan galaafatay oo laba beelood dhex martay iyadoo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha dadaal badan ku bixisay sidii loo soo afjari lahaa colaadan Sakariye Maxamed حسن سكريسكي wararka Xuriya 24 TV ururka ONLF iyo dawladda Itoobiya oo heshiis ku kala saxeexday magaalada Asmar ee dalka Eritrea warkaasina waxa inoo hayay Cabdiraxmaan Maxamuud Erdogan kadib kulan ku dhex maray magaalada Asmar ee wadanka Eritrea mas'uuliyiin ka kala socota Itoobiya iyo ururka ONLF ayaa ugu dambeyn heshiis ku kala saxeexday dhowr qodob ka kooban afayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Hirmooge Cadaani ayaa sheegay in la isku afkartay mid kamid ah qodobada uu ogolaanaya jabhadda ONLF inay si wadi karaan halgankii iyo ujeedooyinkii ay u halgamaysay qodobada oo si gaar ah su'aal loogu weydiiyay Cadaani ayaa uu sheegay in heshiisadu dhigayaan in ONLF ay si nabadgelyada u sii wadato halgankii iyo martigelintii nabadda xoreynta deegaanada Soomaali galbeed qodobka waxa kamid ah in la joojiyo colaadda iyo in ONLF ay si buuxda u wadan karto si nabadgelyo halgankii ay ku jirtay iyo in la magacaabo gudiyo labada dhinac ka kala socda sidaas ayaa uu yiri Hirmooge Cadaani dhinaca kale kulankan waxa ku matalayay xubno uu horkacay gudoomiyaha guud ee ururka Admiral Maxamed Cumar Cismaan halka dhinaca Itoobiya horkacay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo waliba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaali galbeed Mustafa Cagjar maaha markii ugu horeysay Asmaa ay ku kulmaan labada dhinac asaashay sidkan ayaa gaadhaya oo muuqday inuu soo gabagabeeyo wada hadalladii ay ugu dambeeyay ee labada dhinac ay wada qaateen Cabdiraxmaan Maxamuud madaxweynaha dalka Turkiga oo sheegay in maalinka Salaasada ay soo bandhigayaan cadeymihii dilka Jamal Khashoggi warkaasina waxa inoo hayay Muna Cali Nuux Muna Cayni madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in maalinta Salaasada ee fooda inagu soo haysa shaacin doonaan faahfaahin ku saabsan qaabkii kala duwanaa ee loo dilay Jamal Khashoggi ayaa bishan labadeedii lagu dilay qonsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul Erdogan ayaa waxa kale uu sheegay inuu sharixi doono sababta 15 ka tirsan Sacuudiga sirdoonka Sacuudiga ay ku yimaadeen Istanbul iyo in 18 kale oo ka tirsan sirdoonka Sacuudiga ee lagu xidhay Riyaad xubnaha Sacuudiyaanka oo magacyadooda qariyay ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qaabka loo dilay saxafiga uusan ahayn qaabka ay sheegtay dawladda Sacuudigu la wareedyadaasi ayaa waxa ay sheegeen in saxafigaasi lagu dilay ciijiniyeen lagu caburiyay neefta sidaana loo kharajiyay Muna Cayni Xuriya 24 TV hal sugaha Sacuudiga oo khadka telefoonka kula hadlay qoyskiisa xufiga Jamal Khashoggi warkaasina waxa inoo hayay Saddam Ahmed dawladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan oo khadka telefoonka kula hadlay wiilka suxufiga la dilay ee Jamal Khashoggi si uu uga tacsiyo dilka abiisa Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul dalka Turkiga 2 Oktoobar dawladda Sacuudiga ayaa maalintii Jimcaha qiratay in Jamal Khashoggi lagu dilay safaaradda ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Maxamed Xays Xuriya 24
daawadayaal gun iyo gabagabo waxa uu ahaa qodobkaasi warkeennii caawa oo idinka imanaya telefishinka madaxa bannaan ee Xuriya 24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa waa Umul Khayr Yuusuf Cabdi oo idin leh fi amaanillah.